بصي ساعة وقعنتها بسم الله قرحة جوا سوق قرحة جوا سوق قرح مين ويجي سامنا موبايل كان بيجي بالنوم بسم الله الرحمن الرحيم شنتي ماتش لوكن كوي لباتن إنا لله وإنا إليه راجعون وحعاو فيتكي أرجحسدو أي قرح لبك سيد المقايدة لول يمني وقطع الله ودada hormarta magaalada wadada hormarta dekada caalamiga ah magaalada Muqdisho ee aada isgoyska via Roma ujeedada ayaa ahayd in argixisadu ay qarax u isticmaalaan oo ay ku weeraraan dad shacab ah oo ku qaxweyn jiray ama u tagi jiray u cashayn iyo baashaal tagi jiray maqaayadaas lul yemani oo ah markii labaad in ay la beegtaan ismiidaamin qarax qasaaraha meesha ka dhacay waa ilaa 10 qof oo dhimasho ah iyo 30 dhaawac sida aan tirada ku hayno oo ciidamada ammaanka isla markiiba goobta gaaray ay umada gaarsiinayaan qasaarahaas ayaa keenay qaraxaas meesha ka dhacay oo ahaa mootada nooca qaada xamuulka lagu qaado oo laga soo buuxsho walxaa qarxa ayaa lagu weeraray sida aan xogta hordhac ah ku hayno weerarkaas ayaa ku soo aaday xilli fiid ah oo shacab ka tirsan ummadda Soomaaliyeed oo waxba galabsan ay maqaayada ku qaxweynayeen weerarkan ayaa macnihiisu yahay in argixisadu aysan marnaba raalli ka noqon karin in qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed oo si iskooda isaga qaxweynayay ama meel fadhiyay ay weerarka u isticmaalaan ma ahan markii kuwada argixisadu dad shacab ah oo meel fadhiyay ay weerarka noocaas ku qaado arrimahan waxay imaanayaan xilli aad la socotaan magaalada marxaladda ay ku jirto iyo in isjiijid dhanka dhigista banaanbaxyada ay jireen oo sababta dawladdu ay u diidaysay ay ahayd in falalka noocaan oo kaleeta ah ee la helo cid mas'uuliyaddeeda qaadata si dadka looga ilaaliyo in argagixisadu ay meel cidla ah dadkeena maalin kasta ku laayaan qaraxaas caawa dhacay ayaa qasaarihiisu inta yahay waxa kale oo jira burbur hantiyeed oo goobta ka agdhawaa oo qaraxu uu sababay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto intii goobta ku dhimatay sidoo kale ilaahay ha u boogadhayo dadka shacabka ahaa ee waxba galabsan ee argagixisadu ay goobtaas maantay ku dhaawacday intaas ayaa qasaaruhu caawa la egyahay wixii kale oo faahfaahin ay baarista arrintan oo socota hay'adaha ammaanka waxaan dib ummadda Soomaaliyeed iyo bahda saxaafadda ka siin doonaa faahfaahinta wixii meesha ka dhacay iyo sidii ay ahaayeen iyo natiijada baaristeena laakiin inta hordhaca aan hadda idin sheegi karo waa intaas mana jirto wax inta ka badan oo aan ka ahayn source ahaan ama isha aad ka qaadan kartaan aan ahayn hay'adaha ammaanka oo goobtiiba marka gurmadka u sameeyay waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.